waayahay halkani banooni ayaa lagu xiray string kadibna la tuuray si goobo ah sifa ay ugu wareegato. Tani waxay u muuqanaysaa sida tani mid ku socdo wado goob ah oona ku socota xawaaro madoorsamo ah oo 6 meter per second iyo cabir gacankiisu uu yahay 0.7 meter. Su-aasha waxaa find the acceleration. Halkan dadka qaarkood shaqadooda way fiican tahay haddii ay isticmaalaan xawaaro madoorsamo ah. Waxay dhahayaan acceleration maba lahan, laakiin xaqiiqda ah acceleration inay haysano haddii xataa xawaaraha uu yahay banooni oo u socdo dhinaca bidix. halkan uu yaalo banooniga wuxuu u soconayaa hoose ee halkan taalana waxay u soconaysaa midig. Directionkaasi constantly ah ayuu isku bedelayaa. Waxaa xaqiiqo ah acceleration iyo qiimihiisa accelerationka lagu raadin karaa qaacidada hoose ku xusan. Acceleration waxaa lagu helaa velocity square over r, halka acceleration velocity square uu yahay 6 meter per second square over radius 0.7 meter. adigoo isticmaalaya calculatorkaadii u qaybi 6 u qaybi waxaa kuu soo baxaya 51.4 centimeter meter per second square. waxaa muhiim ah SI unitka oo meter square ah meter per second square inaad isticmaashid, sababtoo ah square-ka mid waliba ayuu ku dhacayaa, meter wuu ku dhacayaa, second wuu ku dhacayaa, therefore meter goes with 1 meter. halkaas ayay noogu soo hareysaa. Now isbedelka goobada weyn waxay tani ka dhigaysaa gacanka mid yar, sidaasi awgeedna acceleration wuxuu noqonayaa mid yar. Tanina waxaa sabab u ah goobaha weyn positionkiisa ayaa isbedelaya, speedkan madoorsamo ayuu noqon. waxaan leenahay the smaller the radius the larger the acceleration. Su-aashaanada xigtaa waxaa ah what is the tension required. The tension required waxay la micno tahay force of acceleration. Force of acceleration waxaa lagu helaa mass times centripetal acceleration. qaacidadan kale ayaadna isticmaali kartaa centripetal force mass lagu dhuftay velocity square over radius, halka sidoo kalena aan isticmaali karno qaacidadii ay tahay oan kusoo marnay the second law of motion, force is equal to mass times acceleration. mass waxaan la siiyey su-aasha 0.24 kg times waxaan leenahay 51.4 meter per second square aan hore usoo helnay. halkan markaan isku dhufano labada tiro anagoo isticmaalayna calculatorkeena waxaa noo soo baxaysaa 12.3 newton. waxaan leenahay marka centripetal force su-aashan dhexdeeda waa 12.3 halka aan haysano velocity-na 51.4. waxaa isticmaali kartaa qaacidadan ama mid